kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aad ku daawan doontaan iyana waxaa ka mid noqon doona muuqaalo iyo sawirro cusub oo laga helaya dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo kaasoo ay ku jiraan dhimashada askar tiro beel ah oo labadii dhinac ee dagaalantay madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo weerar dhinaca afka ku qaaday mucaaradka isla markaana hanjabaad culus oo hor leh u diray mucaaradka maxay tahay hanjabaadda mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagana ku eedeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa in dalka ay geliyeen xaalad macaluul ah bilaqan ay u geysteen isla Baydhabo wararka naga soo gaaray waxay ku waramayaan adan madoobe inuu amar culus siiyay saraakiisha amniga laguna amray saldhigyo iyo difaacyo cusub in laga sameeyo duleedka Baydhabo qodobadaas iyo wixii soo kordhaya daawan doonta inta tamintan aynu ku guda jirno soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo waxagaaga wararka naga soo gaaray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ku waramaya kadib dagaalkii ka dhacay magaaladaasi maalmo ka hor oo u dhaxeeyay ciidanka daacadda waa garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareeni iyo ciidanka maamulka Madoobe ku dowladda federaalka Soomaaliya hubanta in ilaa hadda ay soo baxayaan muuqaalo iyo sawirro cusub oo ku saabsan xaaladda dagaalkii halkaasi ka dhacay muuqaalada iyo sawirrada laga helay gudaha magaalada Baydhabo kadib dagaalkii ka dhacay waxa ay muujinayaan askar tiro beel ah oo labada dhinac kaga geeriyootay dagaalka iyadoo laamaha amniga ee magaalada Baydhabo wali ay markaas soo gurayaan meedadii sidoo kale dhaawacyo cusub oo laga helayo goobihii lagu dagaalamay waxaana u badan meedad laga helayo goobihii dagaalada ugu adag ay ka dhaceen ee gudaha magaalada Baydhabo maamulka koonfur galbeed ee aadan madoobe uu hogaamiyo waxa uu sheegay in ilaa hadda ay helayaan meedad cusub oo ciidankii Laftigareena walow markaasi dhankooda aysan sheeganin wax khasaare ah oo soo gaaray dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sababay khasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidanka dowladda iyagoo laga gubay gaadiid dagaal oo beebayaal badan iyo sidoo kale cabdibilyaal aad u fara badan isla markaana ciidanka Laftigareena ay ku guuleysteen in kuwii aadan madoobe ay ka soo saaraan difaacyadoodii duleedka Baydhabo isla markaana ay isugu geeyaan xarunta madaxtooyada koonfur galbeed oo dib markaasi uga soo rogaal celiyeen ciidankii dowladda iyo sidoo kale kuwii maamulka aadan madoobe maamulka koonfur galbeed aadan madoobe waxa uu sheegay in wali ay baadi goob ugu jiraan meedad hor leh oo suuragal ay tahay inay ku jiraan ama ay yaalaan goobihii lagu dagaalamay ee gudaha magaalada Baydhabo maadaama dagaalkii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay uu sababay khasaare lixaad leh oo soo kala gaaray labada dhinac walow maamulka aadan madoobe dagaalkii Baydhabo ka dhacay khasaarihii ka soo gaaray isaga iyo ciidanka dowladda ay si weyn markaasi u qariyeen dhinaca kale mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weerar dhinaca afka waxa ay ku qaaday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo ay ku eedeeyeen in Soomaaliya uu geliyay marxalad cakiran oo markaasi ay ugu horeyso xaalad dhinaca dhaqaalaha waxa mucaaradka oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ay sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya uu ka dhigay dukaan uu isagu leeyahay isla markaana dhammaan hantidii iyo dhaqaalihii dalka isaga u lunsaday isla markaana dalka waqti xaadirkan uu wajahayo xaalad macaluul ama xaalad markaasi sabool ah oo aad markaasi u liidata ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre oo shirka jiraa'id ee qabteen mucaaradka ka hadlay waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay uu barakiciyay in ka badan 500,000 oo qoys oo Soomaaliya kuwaasoo laga barakiciyay in ka badan 150 goobood waxaana uu sheegay in dhammaan dadkaasi la barakiciyay hadda aysan haysanin noloshii asaasiga ahayd sida waxbarashada adeeg caafimaad iyo sidoo kale biyo nadiif ah isla markaana aysan haysanin waxyaabihii qutul daruuriga oo ugu muhiimsanaayeen cuntada waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi la barakiciyay hadda ay wajahayaan xaalad adag oo macluul ah madaxweynahana uu muuqdo nin dhagaha ka fureystay oo kaliya markaasi danihii uu lahaa ee dhulka inuu iibsado oo kaliya dadkaasi uu barakiciyay waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in si degdeg ah gacmaha looga qabto hoggaanka iyo taliska waqtigiisu dhamaaday isaga kooxdiisaba ay kaga soo hartay dhacay sidoo kale boobka hantida dadweynaha dhinaca koonfur galbeed aadan madoobe ayaa markii ugu horeysay waxa uu soo saaray amar culus kadib dagaalkii magaalada Baydhabo ka dhacay waxaana aadan madoobe kulan uu la yeeshay laamaha amni saraakiisha ugu sarreysay heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed uu kala hadlay xaaladda amni ee magaalada Baydhabo sida muhiimka ay u tahay in xal waaro oo degdeg ah loo helo
aadan madoobe waxa uu soo jeediyey in qasab ay tahay in magaalada baydhabo duleedkeeda laga sameeyo difaacyo iyo saldhigyo cusub isla markaana waxa uu amray saraakiisha amniga in loo baahan yahay in ciidamada difaacyo iyo saldhigyo looga sameeyo duleedka magaalada baydhabo si looga hortago falalka amni darre ee soo noqnoqday ee magaalada baydhabo muddooyinkii ugu dambeeyey ay martigelinaysay aadan madoobe waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan karin weerarada soo noqnoqda ee gudaha baydhabo ka dhacaya iyo sidoo kale khasaaraha soo gaaray dadka shacabka iyo ciidamada waxaana uu faray saraakiisha amniga inay la yimaadaan qorshe amni oo degdeg ah sida ugu dhaqsiyaha badan difaacyo iyo saldhigyo looga sameeyo duleedka baydhabo xilli muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha baydhabo ay difaacyo ka samaysteen ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya aadan madoobe waxa uu amray in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan difaacyada laga samaystay gudaha magaalada baydhabo looga qaado isla markaana difaacyadaasi ay u noqdaan kuwa duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay laga sameeyay ciidamadana halkaasi ay degaan si ay uga hortagaan weerarada ka imaanaya dhinaca ciidamada garabka Laftagreen madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Gaalkacyo ka hadlayay maalinimadii shalay ee galinkii hore ayaa waxa markii ugu horeysay tani markii uu dhamaaday muddo xileedkiisa weerar adag oo dhinaca afka uu ku qaaday mucaaradka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku jirto xaalad soo kabasho isla markaana aan la aqbali karin in cid kasta ay hub iska qaadato danaheeda iyo masaalixdeeda si ay u gaartana ay awood markaasi qoriga caaradiisa ay ku raadsato Xasan Sheekh waxa uu sheegay in cidda kaliya ay hub loo ogol yahay ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aan la aqbali karin mucaarad hubeysan haddii ay soo qaataan gacmaha laga qaban doono waxaana uu sheegay in gabi ahaanba dadka Soomaaliyeed ay mamnuuc ka tahay in ay hub ama qoryo qaataan cidda kaliya wadan kartana ay dowladda tahay haddii ay dhacdana sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabo looga qaadi doono xilligeeda Xasan Sheekh ayaa u muuqda inuu meel marinayo qorshayaashiisa wixii soo kordha qodobadan tabinadeena xiga ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like saar oo sii share